war-saxaafadeedkan oo ka soo baxay xafiiska shirkadda Chad Oil ee magaalada Berbera ayaa lagu qaadacay saami qaybsigii ka harsanaa shirkadihii lagu wareejiyay maamulka haamaha shidaalka ee Berbera oo hore loo qaybiyay 70% isla markaana baaqigii harsanaa oo ahaa 30%. habeen hore kulan ka dhacay qasriga madaxtooyada ee Somaliland lagu qaybiyay. war-saxaafadeedkan ayaa u dhignaa sidan: mareeyaha guud ee shirkadda Chad Oil oo ka mid ah shirkadaha keena shidaalka Somaliland, Awil Nuur Cabdilaahi Awil Cawl ayaa sharci darro ku tilmaamay qaabkii loo qaybiyay 30% harsanaa saamigii maamulka haamaha oo hore loo qaybiyay 70%. waxaanu maareeyaha shirkadda Chad Oil sheegay inuu markii uu ogaaday qaabka loo qaybiyay 30% harsanaa uu la soo xiriiray madaxda dawladda dhexe u qaabilsan gobolka Saaxil iyagoo u sheegay inaanay waxba lagala socodsiinin qaybinta saamiga isla markaana aanay waxba laga weydiinin iyaga. waa sida war-saxaafadeedka lagu sheegay. waxa kale oo war-saxaafadeedka lagu dhaliilay wasiirka ganacsiga ee maalgashiga Somaliland Muuse Qaasim Cumar iyo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo maareeyaha shirkadda Chad Oil uu ku tilmaamay in ay si cadaalad ka fog u maamuleen qaybinta haraaga shirkadaha shidaalka Berbera oo ahaa 30% isla markaana ka hor imanaya heshiiskii hore loo galay oo ahaa in laga fuul yeeli doono shirkadaha ka soo jeeda deegaanka gobolka Saaxil oo markii hore saami buuran aan ka helin heshiiskii hore. gunaanadkii maareeyaha shirkadda Chad Oil waxa uu tilmaamay inuu maxsuul aan isu dheeli tirnayn ka soo baxay saami qaybsigii shirkadaha lagu wareejiyay maamulka haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera. waxaanu xusay inuu dib u soo bandhigi doono madaxda dawladda dhexe u qaabilsan gobolka Saaxil, xildhibaanada ka soo jeeda baarlamaanka gobolka Saaxil iyo golaha deegaanka degmada Berbera, salaadiin cuqaal iyo waxgaradka gobolka Saaxil lagana tashan doono